السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. runtii walaa geeka isheen meelo am kala aan fadhiyo way buaha in ana kudo walaagi taariikh ahaan la mari dadkun reeyin kala raw am dadkun digil mirfla raw am dadkun koonfur galbeed iska rawba taariikhdii walaagi waxa marina faday geeka in am kudo taariikhdaas wal kalama ee way bua awka inta digi jiray iyo awooga inta digi jiray walaga saytume way bua taariikh oo siyaasiyan ee waaye markuu ku bilaabo lixdameeyadu walaagi ku horeeyo waxa soo siyaasiyan dadka digil iyo mirfla raw intii oo suubsadeen xisbo oo dhaqdhaqaaq oo markaas goobnimo doon la ka jiri xorriyadii la faday dhulka Soomaali guud ahaan in la xorriyad la faday digil mirfluniyon Soomaalida asna ku mid ahaayeen way fadayeen deegaansho iyo dhulsho iyo madax banaanaysadaan taas markii uu ku gudubno way la hagalayeen waqtigii oo Maxamed Siyaad Barre wadanka soo qabsaday siyaasiyan digil mirfla kacaanka haani dhaliyeen la raayay oo Maxamed Siyaad Barre madax ahaay digil mirfla ma baka jirna kulusho way haayeen haddana hooyi daaradahaayeen nasiib daro hadan way buu digil mirfla am kala reebun am reer koonfur galbeed hadan galanto way ka dhiyeenaha dadku la raaw hadan hooyi daaradan ka dhiyeen runtii taasoo waliba eed awoodni la sheegay waana link isticmaali oo power xoog badan link isticmaali taasoo deegaansho inta badan markaas la hadigi hala ka digiyay dadku way buu dalsho abaar sideen way buu dhul barwaaqo ee la jeehal gargaaro hala ka digiyay sidii fadaan ka koon haano bedelka kooyeen kulli taas wal wada ogi tankiin ka dornayto boo ku yeesana boqoleeyahay afartina afkiya la qori afkaasoo sun nagadi gumaysi kala oo ni gumaysi sunagadi intaas way buu hornimadii walaa ku horeeyeen way buu taliyaan leeyna gumaysi kullu ay wada gumaysiday la ubi daarad laakiin iyo gumaysiga taliyaan iyo ingiriiska ku baxeen laakiin hadana way galneen gumaysigii madoobay oo Soomaalida dadtii ee hadana dhaxgalnay waqtigii Siyaad Barre xataa taasoo dhulkaan inta badan waqtigaas la qaadaday afkaan waqtigaas la baabi'iyay gumaysaha way buu markii uu tabaw walaagi kii reeb ya kii ku tabay mesela hadda markaad aragto Faransiiska oo kale dhulkii uu gumaysida jiray oo West Africa in badan dhulkaas West Africa linka sawir buu Faransiiska way ka soo biyo walaaro assimilation ka soo biyo dadkii dhaxgali waxa way marna afkiya iyo bari geekasto gumaysigii oo la gumaysaday oo physically hay way ku dornkan oo maskaxiyan ay ku dornay geekadu argaas Europe roogi am kala Africa roogi argaas oo Afrikaan oo san show meel dunyada yaabas iyo timosho ilmosho isdalkan awkan Afrikaan leeyi aadan Afrikaan leeyata ilmoogin Afrikaan leeyin aadi awka isku dhaleen oo hadan Faransiiska wada doobaan sababtoo ay way sheenay taas way sheenay gumaysigii oo la gumaysigii oo dhinaga afka ku gumaysigii taas walaan hanjeedu way buaha walaan handareero way buaha afka hada way wala isku gumaysigii ku dhahay waqtigii Siyaad Barre marka gumaysigaas dhig Siyaad Barre runtii markii labaati koow sano hayti laakiin way buaha time and tide wait for no man waqti shay dhamaadi labaati koow sano halkii haato hayti wadanka marka burburkii ku dhii dadkii hooyi daarad hay hatta mustaqbal burbura ku dhii laakiin ha ka wadeen markii ha ka wadeen hadan iyo la gumaysan galnay hadan gumaysan kale leh hadan galnay sidii hadan leenka jiri way la bilaabay hadan way boo wallahi raw dawladnimo in la ka tartamo la bilaabay dawladnimadaas oo hadan waxa way marnay qaab oo beeladna ka galay bilaabatay runtii beelbeela wala qaybsaday laakiin tira ahaan leey waxa way marnay wala keensiye laakiin hadan gumaysigii ma ku bano sidii handareerti geek way la hadeereen waqti oo la raw maamul goboleedyo maamul goboleedyo baad fiiro waxaan ka horeeyay markada dib taariikhda rato way buu maamul goboleed way ka horeeyay way buu am kala wilisho federal fadaayeen dadka reebin kala raw dadka koonfur galbeed raw laakiin waxa way marna for a time being walaal iyo federal fadaayeen marka soo barkay dhulkii wal qaadayba si kasta baxaato waxa soo sanaa way buu
in la suubi maamul goboleed oo regional autonomy la raw oo xasi suubi mar dambeena way suubi la raw maxamed cali xaamud liindoorda maamul goboleedyadii kale oo مثلا hani oo ku dhisi Hargeysa ama Boosaaso ku dhisi ama Bari ku dhisi aan isku dareerin kun haani kayna marka mudareeratiin maxamed cali xaamud runtii mudareer sababtii ka dareero way tahay haytay dhulkii oo la haysado oo hooyi daarad la haysadaan ya unisom koyte unisomta wala wadadoon hooyi daarad la haytay yahay markii maamul goboleedka aad ka dhawaaqday awood buu ma lahayn marka aad maamul goboleedka aad ka dhawaaqday aad ka difaacto ma lahayn ama somti markii bati yoo la ka raasi ay dida kooy waxa way marnay yoo la ka raasi muddaha ku wareegtay marka waqtiga ku wareegay marka waqtiga hadda ku wareegay geeka way roogna way buuha Somaliland oo dhulsho madax banaan way ku madax banaaneen way buuha Soomaali intii kale ku madax banaaneen geeka markii oo taladaayaan lan yoo taladaayaan oo yo ku fadayaan aqoonsi bijiro madaxweyne suubsadeen ciidan aliin xuduud geeka qabiilka oo Soomaali oo la degan lan yoo wal ku toogayaan male gobolka bari oo kale maamul goboleedka suubsadeen maamul goboleedka iyo suubsadeen geeka lan yoo wal ku toogayaan male galmudug maamul goboleedka suubsadeen maamul goboleedka iyo suubsadeen iyo waardiisdahay iyo xoog shahaayaan lan wal iyo ku toogayaan aqoonsi ku toogayaan male okay way kooyay lan la raway buuxa Axmed Madoobe haddii fadaha qabsaday ama ay qabsanay way soo bixin wala raw maamul raw waxa way marna Jubaland state wala raw suubsaday usu waardiyahay la an kala kormay la ku baaqoro male amar shay laantis okay way kooyay way buuxa dadku reer koonfur galbeed oo markasta waxa way marna in dadkaas wala suubsadeen oo una suubsanoy okay